السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنالكي دهن أكاديمي oo aad ugu barateen inuu idin soo gudbiyo casharo ku saabsan barashada luqadda Talyaaniga. maanta waxaa idin soo jeedin doonaa casharo ku saabsan manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada ee fasalada Form 4 maadadan waa afka Soomaaliga. waxa aan ereyada 10ka ah ee soo socda mid kasta raadinaya dhowrka macno oo uu leeyahay. ereyga koobaad seemo. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah roob, balaayo, halis. ereyga labaad ar. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah libaax lab ah, nin geesi ah, argoosi. ereyga saddexaad waa aas. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah xabaalid meyd, waqtiga qoraxda dhacdo, doogid. ereyga afaraad aaran. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah doog, barwaaqo, geela intiisa yaryar. ereyga shanaad adin. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah afarta lugood ee xayawaanka midkood lug ama gacan. ereyga lixaad adduun. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah koonkan, dhulka, maal ama hanti badan. ereyga toddobaad af. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah luqad ama waddo, irid. ereyga sideedaad afti. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah cod u qaadis, ogolaan ama diidis arrin. ereyga sagaalaad agool. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah qolof cad ee madaxa yeesho, wasakh. ereyga tobnaad alkun. tirada macnayaasha uu leeyahay waxaa ka mid ah doonis, gabar doonan ama wiil gabar u doonan. waa anigoo ah Ustaad Cabdiraxmaan Cumar Xasan. waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada kanaalkii la magac baxay Dahan Academy.